Hi, my name is Deepak Mishra, and I would like to say you namaste. Hello, magacayga waa Deepak Hisha. Waxaan jeclahay inaan ku dhaho namaste. Su-aasheedu waxay tahay, horta anigu waxaan ahay Hindu. Hindiya waxaan ku guursaday gabar muslimada. Halkan ayay joogaysaa boqortooyada Sacuudiga bisha soo socota insha Allah. Ma ogtahay markii aan u sheegay inaan booqan doono muxaadarada Dr. Zakir Naik, waxay dhahday fadlan ha aadin waxan buu ka sheegaa shiicada. Aydan runtii waa gabar shiico ah. Saadarteed waxay tiri ha aadin Dr. Zakir Naik. hooyadeedna sidoo kale ugu tiri fadlan ha aadin haddaad aado wax xun buu shiicada kaaga sheegi doonaa waadna naga tegi doontaa sidaa darteed shakigaasi koobaad aan ku fikiraya aniga hadda midka labaad wuxuu yahay su-aal guud ayaan qabaa mawduuca haddii aan dhahno shay waliba ilaahay baa iska leh shay waliba ilaahay buu u noqonayaa marka lagu dhiso diinta islaamka iyo hinduugaba haddaba muxuu ilaahay u doonayaa dadkoo dhan inay caabudaan muxuu ilaahay diimo kala duwan inoogu sameeyay markaan ka sheekeynayna abuurka muxuu inoo abuuray muxuuse inooga doonayaa inaan caabudno muxuu inooga baahan yahay inaan sanado badan ku qaadano cibaadadiisa muxuuse shay kale uga dalbanaynin inuu caabudo annaga basharka kaliya maxaan u caabudaynaa waad mahadsan tahay walaalka laba su-aal ayuuna weydiiyey intuusu su-aashii weydiin kahor wuxuu yidhi namaste walaal ma taqaanaa macnaha ereygan namaste maya dadku waxay leeyihiin haay ma taqaanaa macnaha haay aniga waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay la micno tahay nabadgelyada alle iyo naxariistiisa korkaada ha ahaato adiga waxaad igu leedahay namaste waana inaan jawaabaa sax haddaana ka jawaabina waxaad dhihi doontaa war ninkan waa noocee sax adigan ku weydiinayaa waa maxay macnaha ereyga namaste maya mudane aniga markii lai fiirsho ereygan waxay la micno tahay waan ku salaamayaa waxaan kugu leeyahay assalaamu calaykum waa marka adiga lagu fiiriyo iga raali noqo haddii aan ku caayo oon kugu dhaho caayadaydu adiga marka lagu fiirsho waa ammaan may rumaysanaysaa haddaan shaqada tago haddaan kugu dhaho ullu ereyga ullu luqadda urduuga waa awl guumays balse ingiliishka awl waa qofka xigmadda badan balse ullu luqadda hindiga maxay la macno tahay ullu maxaa laga wadaa doqonka haa doqonka sidaa darteed dadka ingiliishka ku hadla way maqlayan waxay umaleen inaan ku ammaanayo on kuleeya nin xigmad badan balse waad ogta adigu inaan kugu leeyahay doqon hadda aniga waan aqaanaa macnaha namaste isla sababtaas aniga kuma jawaabin adiga macnaheeda ma taqaanid salaan ahaan ayaadna ii dhahday anigase macnaheedaan ogahay sidaa darteedna kuma jawaabin macnaha namaste waa ereygan wuxuu ka yimid kelimada sanskreetiga ah idam namame oo la micno ah waan kuu rukuucayaa adiga ma doonaysa inaad ii rukuucdo hubanti waxaa suuragala inaad u rukuucdo qof aad weyneynayso caalim ah waa sax waa marka laakiin adiga lagu feeriyo waxaa suuragala inaad u rukuucdo qof caalim ah laakiin marka qur-aanka la eego iyo marka loo barbardhigo islaamka iyo badanaaba diimaha waxaa waajib inaadan u rukuucin allah mooye ma og tahay in hindi badan markaan muxaadaro u jeediyey kadib way ii imaanayaan lugahay ay qabsanayaan ma garanaysaa waxay leeyihiin हमने पहले बार भगवान का अवतार खुद देखा आंख से waxay ka wadaan waa markii ugu horreysay ee noloshayda aan la kulmayo ilaahay shakhsi ahaan fiiri walaalkay waan ogahay inaad ixtiraamayso ood i jeceshahay anigana sidoo kale waan ku qadarinayaa laakiin in loo rukuuco wax aan alla ahayn waa shirk xitaa hinduuga waxaa ku waajiba inaysan u rukuucin cid aan allah ahayn sidaa darteed anigu waan saxayaa sababtoo isagu wuxuu u samaynayaa ixtiraam balse jacaylka iyo ixtiraamku waa inuusan xadkiisa dhaafin haddii ixtiraamka iyo galgacaylku xadkiisa dhaafo waa shirk waxaa jira hinduu badan oo ii imaanaya kadibna aad ii ammaanaya xilli ay gaareen inay allah ila simaan anigana waxaan ku dhahaa aniga ma ihi ilaah keliya waxaad rukuuci kartaa allah subxaanahu wa tacaala waxaan ku hadlaya iyo cilmiga aan leeyahay waa hadiyad allah subxaanahu wa tacaala siiyey waa siin iyo hadiyad xagga allah sidaa darteed markaad aragto waxaa lagaa rabaa inaad dhahdo maasha allah macnaheedu waa ilaahay baa doonay dhammaan waxaan sheegayo waa iraadada alle subxaanahu wa tacaala haddii kale hadalka ayaan gefgefi lahaa sidaa darteed markaad leedahay namaste islaamka ayay ka soo horjeedaa xitaa hinduuga ayay ka soo horjeedaa iyadoo jirto culammada qaar inay leeyihiin idam namame inay suurtagal tahay inay la macno tahay waan ku qadarinaya balse macnaha dhabta waxa weeye waan ku rukuucayaa anigu ku weyninaya islaamka assalaamu calaykum macnaheedu waa nabadgelyo korkaaga ha xilli waliba iyo meel waliba ayaad ku dhihi kartaa ingiliishka waxaan dhahnaa good morning subax wanaagsan laga yaabay ninkan xaaskiisa iyo asagoo inay isku soo dhaceen midkooda ka hor imaana wuxuu leeyahay good morning subax wanaagsan asagana waa inuu jawaabo yidhahdo good morning isaguna qofkaasi gudaha wuxuu ka leeyahay subaxdaanoo kale yeesa iman su-aashaada aan u laabto
in gabadha kuu doonan fiancé xaaskaaga miyaa mise waa gabar kuu doonan waa xaaskayga xaaskaaga haa waad qabtaa hagaag waxay kaa dalbatay xaaskaaga inaadan imaanin muxaadaradayda sababtoo aniga shiicada ayaan kasoo horjeedaa sidaa darteed hadalkeeda maad yeelin adiga aadaad ii jeceshahay anigana waan kugu ixtiraamayaa balse ma ogtahay sababta ereyga shiica qur-aanka lagama dhex helayo shiici iyo sunniba qur-aanka laguma sheegin qur-aanku wuxuu ku leeyahay suuratu alcimraan suuradda 3 aayadda 103 wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu qabsada xarigga ilaahay dhammaantiin hana kala tegina muslimiinta waxaa waajib ku ah inay qabsadaan xarigga ilaahay oo aysan qaybsanin ilaahay wuxuu ku leeyahay sidoo kale suuratu al-ancaam suuradda 6 aayadda 159 kuwa ku kala tegay diintooda oo noqday kooxo ka mid ma tihid rasuulka allow amarkoodana allah unbaa iska leh markaasuu uga warramay waxay falayeen sidaa darteed in islaamka dhexdiisa kooxo la sameeyo waa xaaraan qof waliba oo diinta islaamka dadka u qayqaybinaya kooxo wuxuu ka fogayaa qur-aanka iyo sunnada haddaba u sheeg xaaskaaga in doctor zaakir naayig leeyahay ma jiro shay lagu magacaabo shiici iyo sunni qur-aanku wuxuu leeyahay atiicu allah wa atiicu rasuul adeeca allah oo adeeca rasuulka waxaa nagu waajibka waxa weeye inaan raacno qur-aanka iyo axaadiista ka timid nabigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed nafteeda uguma yeeraya shiici ama sunni kaliya waxaan ugu yeerayaa nafteeda muslim haddaba maanta xaaskaada waxaad u sheegi doontaa waxaan la kulmay doctor zaakir naayig isagoo naftiisa ugu yeeraya muslim aniga kama soo horjeedo sunni ama kama soo horjeedo shiico dhammaan waxaan ku leeyahay muslimiinta si kastoo magacyo u kala baxsadaan u noqda ilaahay iyo rasuulkiisa aniga markaan u jawaabayo muslimiinta qaarkood oo sameynaya waxyaabo ka soo horjeeda qur-aanka iyo sunnada nebiga laga yaabo inay dareemaan ihaano sidaa darteed weydii xaaskaaga ma waxaad raacsan tahay waxyaabo ka soo horjeeda qur-aanka iyo sunnada nebiga haddaba haddaadan samaynin maxaad u khilaafaysaa doctor zaakir naayig haddaad samaysana waxyaabo qaldan u noqo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga zaakir waxa uu ka hadlaya ha raacin zaakir isagu kama tarjumayo islaamka adiicu allaha wa atiicu rasuul adeeca allah oo adeeca rasuul haddaba ku dheh xaaskaaga haddii ay khilaafsanta wixii ku yimid kitaabka iyo sunnada markaas waxaa ku waajiba inay nafteeda ku noqoto waa inay nafteeda ugu yeertaa muslimad kelimada shiica kuma jirto qur-aanka anigana waan ixtiraamayaa jacaylka aad u qabto xaaskaaga iyo jacaylka aad ii qabto maasha allah sidaa darteed muxaadaradeeda ayaad imaatay haddana waxaan u noqonaynaa su-aashaada labaad oo ahayd muxuu ilaahay inoo abuuray muxuuse nooga doonayaa inaan u cibaadaysano muxuu xayawaanaadka uga dalban waayey inay u cibaadaystaan arrinta qusaysa su-aasha ah ilaahay muxuu inooga doonayaa inaan u cibaadaysano horay ayaan uga jawaabay waxaa laga yaabaa inaad dib ka imaatay ma ogey innaga allah ayaan caabudaynaa oon weyneynaynaa dadku way weydiinayaan maxaad u dhahaysaa allahu akbar maxaad ilaahay ugu tukanaysaa markaasaan ku leeyahay diinta islaamka haddaan anagu u tukanno allah arrintaasi wax ay allah subxaanahu watacaala ugu tooran tahay anigu markaan leeyahay allahu akbar ilaaha weyn ilaahay horaan buu u weynaa hadalkayga allahu akbar ilaahay mid weyn kuma noqonayo haddaba maxaan u dhahaynaa ma taqaanaa sababtaan u dhahayno sababtoo ah markaan qof ammaanayo isla waqtigaasi qofkaasi aan ammaanayo leeyahay waa qof weyn waxaa dabiici ah oo caadi ah isku dayo inaan raaco tacliimaadkiisa sidaa darteed sababtaan allah u weyneynayna maahan inuu allah noqdo mid weyn bal alla waxaan u weyneynaynaa sababtoo ah allah ayaan sababtoo markaan weyneynayno waxaan raacinaa amar kastoo qur-aanka kusoo degay sidaa darteed waxaa waajib inaan baranno marka hore allah yuu yahay intaa kadibna wax walbuuna yidhaahdo ayaan raacaynaa ereyga muslim wuxuu la micno yahay shakhsiga u quduucaya doonista allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxaa lagu sheegay suuratu daariyaat suuradda 1 aayadda 6 uma abuurin jinka iyo insiga ilaa inay caabudaan mooye allah wuxuu inoo abuuray si aan u caabudno sababtuu nooga doonaya inaan u cibaadaysana waxa weeye sababtoo wuxuuna siiyey halbeegyo kitaabkani waa tusiyihii basharka wuxuu inoo sheegayaa waxa wanaagsan iyo waxa xun sidaa darteed allah ayaan caabudaynaa oon weyneynaynaa si aan amaradiisa u raacno raacideenna amarada allana waa arrin maslaxadeenna ah tusaale ahaan markaad dhakhtarka tegayso oo uu ku siiyo tilmaamo dawada ah tilmaamahaas ma raacaysaa mise ma raacaysid ها وراعيا ها maxaa adiga jiran isaguna waa dhakhtar waa arrin u eg marka allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale qur-aanka iyo sunnada saxiixa wuxuu inoogu sheegay waxa inoo fiican iyo waxa inoo xun sidaa darteed markaan caabudayno weyneynayno waxaan raacaynaa amaradiisa haddaadan dhakhtarka rumaysanin talooyinkiisa miyaad raaci doontaa waa maya sidaa darteed markaad qadarinaysa dhakhtarka talooyinkiisa caafimaad ayaad raaci doontaa sidaa darteed allah subxaanahu wa tacaala ayaan weyneynaynaa aanu caabudaynaa si aan u noqono dadka ugu wanaagsan ee haddana ugu dhaqanka wanaagsan su-aal baad i weydiisay maxaysan xayawaanaad ku caabudaynin dhammaan makhluuqaadka kale marka laga reebo bini aadamka iyo jinka wax xorriyada ma leh
malaa'igtu xorriyad male, xayawaanaad kale xorriyad male, dhammaantood waxay caabudaan alle subxaanahu wa tacaala. xayawaanaadka, geedaha, buuraha, dhammaan waxay caabudaan allah subxaanahu wa tacaala. luqadda carabigan waxaa lagu magacaabaa muslima. balse jinka iyo bini aadamka alle wuxuu siiyey xorriyad kaamila, sidaa darteed waxaa u suuragala inay allah adeecaan ama caasiyaan. sidaa darteed alle subxaanahu wa tacaala isla sababkaasi ayuu noo abuuray. wuxuu ku sheegay qur-aanka kariimka in wax ugu wanaagsan ee dunida jooga uu yahay bini aadamka. sidaa darteed qaabkeenna, jirkeenna iyo caqligeenna alle wuxuuna siiyey xorriyad kaamila, waxaana noo suurtagal inaan allah adeecno amaan caasino. markuuna siiyey xorriyaddaasi alle wuxuu doonay marka inuuna imtixaano, miyaan adeeci doonaa mise maya. balse makhluuqaadka kale sida geedaha iyo xayawaanaadka wax xorriyada ma leh. sidaa darteed balse markana la siiyey xorriyadda insaanka sida lagu sheegay suuratulmulki suuradda 67 aayadda 2, alladii khalaqa almowta walxayaata, allah waa kan abuuray dhimashada iyo nolosha si uu idiin imtixaano kiinee baa samayn doona camal wanaagsan. noloshaani waa imtixaan loo gelayo nolosha dambe. haddaba markana la siiyey kadib xorriyadda, waxaa inoo suurtagal inaan allah adeecno, waxaana inoo suurtagal inaan caasino. haddaad doonto cibaadadiisa alle, waxaa kugu waajiba inaad amaradiisa raacdo. waa kuu suurtagal khamro inaad cabto, waa kuu suurtagal inaadan cabin. haddii aadan cabin, adigu waxaad raacaysaa amarada alle subxaanahu wa tacaala. isla sidaasi alle wuxuu ku siiyey wax ay waajib tahay inaad samayso iyo wax aadan samaynayn. aad ayayna u yaryihiin kuwaas. inta kale laakiin waa ay kuu bannaan yihiin. haddaad amaradaasi yar raacda, ilaahay ayaad u cibaadaysanaysaa ood amarkiisa yeesho. markaasina imtixaanka ayaad ku guulaysan doontaa. noloshaanina waa imtixaan loo gelayo nolosha dambe. waxaan rajaynayaa in su-aashaada ka jawaab walaal. Thank you.